بسم الله الرحمن الرحيم. welcome back مركله كورس كاني تحنا صعدي waxaan bariya ku dhex jirnay dheetada ama xogta markay tahay groupka xisaab qoran tahay tahay mid taaba ku jirta inaan soo raadi karnay waxa loo yaqaano central tendency-ga ama tirooyinka dhextaalka ahaa aan u bixinay miinka mediumka iyo modka waxaan ugu fiicnay xasuustaan miinka ayuu ahaa the most powerful technique runta badan ee ku sheegi karnay tirooyinkaas kala nooc ah waa 40 geelo okay taa marka waxaan ka soo hadalnay xogta markay tahay ungrouped soo hayacsan tahay iyo markay tahay grouped tahay kii ugu dambeeyay waxaan ka soo hadalnay dispersionka ama kala baahsanaanta ama intay tirooyinkaasi kala fog yihiin oo aan isticmaali jirnay standard deviationkii variancegii mean deviationkii coefficient variationkii and so on dhammaan waa ka soo hadalnay laakiin markaan ka hadlayno dispersionka waa standard deviationkii iyo variancegii iyo andaraadka kii hore aan ku sharaxay kaas wuxuu ahaa markay tahay ungrouped maanta waxaan rabnaa inaan ku baro sida loogu shaqeeyo ama sida loo soo saaro dispersionkii aan ka hadlayn oo ahaa inta miinka loo jiro oo aan ku xisaabi doono la yihahdo variancegii standard deviationkii coefficient of variationkii mean deviationkii intaas waxaan kusoo barannay ayagoo population ah iyo ayagoo sample ah laakiin ungroup ah soo marka maanta haddii ay xogtaadii tahay group sida tan oo kale seen saari karnaa dispersionkiisa oo ah variancegiisa iyo standardkiisa and so on. The answer is very simple. Markas waxaan dhihi jirnay statisticska haddii formulaha uu ku jiro frequency waa group hadduuna frequency ku jirina waa group datada ku taal haddii datadaasi ay tahay dato aan frequency ku jirin waa group hadduu frequency ku jiro waa group very simple xogta markaa fiirino group ama group maahan automatic xogta waa group soo fahamtay frequency wata soo fahamtay waxay frequency wata xogta markay frequency wato waxaan dhihi karnaa xogtaasi waa grouped data laakiin markay frequency wada dhinahay waxaan dhihi karnaa waa raw data ama waa ungrouped data soo marka maanta sidaan ku xisaabi karnaa dispersionkeena marka aan haysano xog oo grouped ah sida tan oo kale dispersionkuna waa tiro badan yahay waxaan soo baranay standard deviationka variancega coefficient of variationka interquartileka rangiga and so on okay marka aan ka bilaabo marka xogtan variancegiisa dabcan waxaan ka soo hadalnay variancega iyo standard deviationka waa laba technique oo loo isticmaalo inay ku sheegaan dispersionka kala baahsanaansho ama inta xogtaasi kala baahsantahay tusaale ahaan waxaa haystaa 2 iyo 8 iyo 100 xogtaas dispersionkeeda way weyntaa marka haddii loo fiiriyo waxay 2 3 4 2 3 4 dispersionkeeda waa isku dhow yihiin kuwaas haddii loo fiiriyo waxay 2 8 100 marka dispersionka waxa weeyaan inta xogtaasi kala baahsantahay waxaa isticmaali doonaa standard deviationka variancega iyo kuwo kale waxaan rabnaa inaan fahmno waxay variancega waa nonsense waxba loo isticmaalo laakiin standard deviationka waa muhiim laakiin standard deviationka marka waxaa loo soo maraa variance marka variancega waa mararka qaar wadiiqada loo maro maxay inaan soo saaro standardka laakiin variancega markaan isticmaalayno waa useless adduunyada ilaahay tviyada jaraa'idada meel lagu qoro ma lahan variance laakiin waxaan aragnaa standard deviation standard deviation wuxuu galaa everywhere marka laakiin variancega just waa variancega waa wadiiqada loo maro markaas tahay standardka tusaale ahaan marka hore inaan ka hadlo variancega waa sigma square laakiin muhiimadda waxaa weeyaan arag maxay sigma waa haddii tusaale ahaan sigma square uu ahaana mathalan 9 waa imiskan 3 waa maxaa ku samaysay root baa ka saaray kadinkaas goosanayaan sigma maxay noqon tahay kan ka saar waa 3 marka markaan variance haysto standardka heli karaa laakiin variancega maxay waa nonsense markaan rabo maxay inaan shaqeynayo marka sidee ku saari kar xogta groupedka maxay variancega iyo standardkiisa annagoo haysano inay tahay
group data waxaan ku soo heshiin haddaan sheegahay formulooyinkaagii waa inuu isticmaalaa xogtan formula oo group ah markay formula group waxaa loo yaqaan waxay wadataa frequency kankii ka horeeyey variance kankii ka horeeyey iyo standard ka horeeyey markuu ungroupedka formula soo waxaan jirin waxay variance-ga equal to maxay x kasta oo laga jaray mu kadib maxay la square gareeyey la sum gareeyey divided by n formulkan ungroup by soo fahamtay frequency motor laakiin maanta xogtan markaa isticmaalayo waa inaa keenaa formulkan mid ka duwan yahay laakiin variance equal to laakiin wata frequency maxaa soo kordhaya biskili maxay xaggaas waxaa galaa maxay frequency si fiican aan qoro markay tahay groupka x kasta oo laga jar maxay mu-ga oo la isku gareeyey lagu dhufto frequency markaas group by kadibna la samgareeyey loo qeybiyey n capital intaas marar qaar waxaa loo dhigaa sum of f saan waa sax mid ka harta qaado because isugeynta frequency-gaagi waa tirada guud isugeynta frequency-gaagi tirada guud way tan marka you can say n ama numberka guud maxay waa isugeynta frequency-ga marka formulkan ayaa loo yaqaan maxay population variance-ga markaan haysano xog oo group ah okay marka kan u baahan inaan isticmaalo dabcan yani columnskan haysto waxba ku biiri doono columnkan maxay ayaa loo baahan doonaa inaan ku darsan maxay si loo soo saaro maxay variance-ga ama standard deviation-ka xogtan oo groupedka ah okay fine one by one marka aan soo sharaxo waxaan u baahanahay intaan si loo helo waxaa u baahantahay kow inay haysto mid waa inay haystaa mu waa inay haystaa x bar waa inay x waa inay haystaa maxay ayagoo kala go'san waa inay haystaa ayagoo square saaran waa inay ku dhuftaa frequency-ga kadibna samgareewa aan ku celiyo intaa markaan raadina waxaa u baahannahay inaan haysto kow mid kasto iyo operationkiisa waa inay haystaa mu waa inay haystaa x aawe x kan waa 8 12 16 x waa mu aawe mu miinkiisa waa soo marka waa inay haystaa mu x baa kala go'san kadib isku garaysan wixii ka soo baxay aan ku dhuftaa maxay frequency-ga kadibna aan samgareeyaa kadibna aan u qeybmaxay n capital qeyb marka waxaan rabnaa inaan soo saarno qiimaha loo yaqaan maxay mu waxa weeyaan miinkan waa miinkan waxaan u naqaanaa waa grouped mean soo marka miinkaas marka aan fiirino miinkaasaa fiirino soo shaqeyn doona soo marka waa inaan soo saaraa waxaa loo yaqaan maxay mu markaan soo saareyno waxaan ku heli karnaa maadaama kay group tahay frequency kasta ku dhufo midpointigiisa isugey divided by n qeyb that's waa mean soo marka waxaan rabnaa inaan soo saarno kan kama haystaa yes kan aaway waa kanaa frequency aaway waa kanaa maxaa u baahan tahay isku dhufo kadibna samgarey kadib n qeyb soo ma xagga waxaa u baahan inaad keensato maxay new column oo ahaa frequency kasta times midpointigiisa then okay yaa isku dhacay kan iyo kan maxay noqotay 80 waxaa isku dhici doono frequency-ga iyo midpointiga x loo yaqaano waa kan iyo kan then hadda waxaan rabnaa inaan isku dhufano 35 lagu dhuftay 12 waxaa soo baxay 420 420 waxaa yaaray 25 times 16 waxaa soo 400 waxay dhiman 8 times 20 waa 160 24 times 1 24 le waaye 28 times 1 28 le waaye then kadibna waxaa rabnaa maadaama inta aan diyaarinay almost waxaa ku haray samkaas isu geyn weeyaan waxaa isu geynaynaa frequency kasta times midpointigiisa marka waxay noqon doontaa 80 lagu daray 420 plus 400 plus 160 plus 24 plus 28
waxay noqonaysaa 1112 ayay noqotay isugeynta qaybta sare kadibna waxaa soo baxay hadduu ilaahay yidhaahdo waa 1112 divided by loo qaybiyey intaas capitalka ah waa tiradii guud oo ahayd frequency sugeyntiisa waa 8 weeyaan kadib ka 8 u qaybino then waxaa loo qaybiyey 8 miinka waxaa noqday 13.9 almost we can call 14 average one ayaa noqday average marka tirooyinka markaa fiirnay average ahaan waxay noqotay 14 ayay noqotay celis ahaan markaan kasoo celinay high-ga iyo low-ga wuxuu noqday centerkeena ahay 14.9 waxaan u soconaa inaan soo saarno variancegeena si maxay aan soo helno standardkeena marka standard deviationka si toos ah oo baari karnaa ama si dadban inaan soo saaro variancegeega kadibna aan maxay square root saaro then variancega marka aan rabo wuxuu leekaan doonaa maxay x kasta oo laga jaray miinkaagii miyugaagii lisku egareeyey maadaama group yahay frequency ku dhufo kadibna samgareey kadibna waxay aanu qaybay okay marka formkaan dhisaa marka waxaa u baahannahay 1 by 1 miyu meesta yes waa haysta 14 x kan aaway waa kana 8 12 16 20 24 28 markaan kuwaas kala gooyo kadib waxay isku egaray kadibna frequency ku dhufo markaas samgareey waa inaad keensaa marka hore qaybtan xaggan waxaa imaanayso x kasta oo laga jaray maxay miyu kadibna isku egaray yes waxaan kala gooyin rabnaa kan iyo miyu ma qaysana 14 then waxa weeyaan 8 oo laga jaray 14 equal to waa -6 waaye isku egaray maxay waxay noqotay 36 yes waxay noqotay 36 noqotay waxaa ku saaray 2 alif waxaa ka jaraya maxay 14 waa 2 waaye isku egaray waa 4 waxaa ku saaray 16 minus 14 waxaa saaray 2 isku egaray waa 4 yes 20 haddii laga jaray maxay 14 waa 6 isku egaray maxay waa 36 24 minus 14 waa 10 laba jibaar waa 100 yes 28 minus 14 waa 14 times 14 waa 196 markaas u geeni kuwaas balaas because saddexaan diyaarinay this one kaliis intaas waxaa inoo haray times frequency marka frequency ku dhufano kadibna maxaa soo bixin fiir marka yes xagga waxaa u baahan tahay frequency kasta times x minus mu whole square intaan waxaa haysanaa intaas maxaa haysanaa intaan waa la frequency away marka column-kan iyo waxaa isku dhici doona waxay column-kan isku dhufo so waxaa leedahay 36 times 10 waa 360 waxaa leedahay 4 times 35 4 times 35 4 times 35 140 waxaa leedahay again 4 times 25 afar lagu dhuftay 25 waa 100 yes waa 100 waxaa soo haray 36 lagu dhuftay 8 36 lagu dhuftay 8 waa 288 288 100 lagu dhuftay hal waa 100 196 times 1 or 96 maxaan diyaarsanay maxaan diyaarnay x kasta oo laga jira mu isku egaraysan maxaan soo raadinay time frequency-ga jaa maxaa haysanaa intaa marka maxaa inoo haray samka then waxaa u baahannahay inaan isu geyno frequency-gii aan ku dhufanay x minus mu-gii oo square ah equal to marka waxaan isu geyn rabnaa intaan 196 plus 100 plus 288 plus 100 plus 140
plus 360 waxay noqotay 1184 ayay noqotay qaybta sare then variance-ga maxay wuxuu leekaan doonaa 1184 loo qaybiyey n meeqaasta 80 yes loo qaybiyey 80 waxaa soo baxday 14.8 waxay noqotay variance-ga ani maxaan u socdaa inaan aado standard deviation-ka ayaa muhiim ah in la isticmaalo like variance-gaas waa nonsense wuxuu taraa waxaan rabnaa inaan soo saar maxay sigma caadiga say ku heli karna sigmadii standardkan maxay waa in variance square saarna kan waxaa rab bila square hadhow ka maxaa geli doono waxaan rabnaa inaan soo saaro sigma bila square sigma bila square say ku heli karnaa waa ina kan root ka saara intaana root saara markaas saaro maxaa soo haraya sigma caadiga gudaha waxaa ku jiro maxay waxaa loo yaqaan 14.8 waxaa gudaha ku jira 14.8 markaan ka saaro waxaa soo baxaya plus or minus waxaa soo baxaya plus or minus waa 3.84 okay sababka waxaan rabnaa inaan ka hadlo markaas waxaan aan ku tacabeelna marka maxay tahay that's the question markasta waan sheegnaa statisticska waxaa ka muhiimsan calculationka in la fahmahay jawaabta bixayso okay xogtaan haysanay ayadoo group ah waxaan ka sameynay group step 1 aan marnay step 2 aan marnay step 3 aan marnay waa hagaajinay kadibna waxaan soo saarnay central tendency-ga oo naqaan maxay average-kiisa celceliskiisa waxaa inoo soo baxay maxay waxa uu naqaano mu waa 14 waxaa ka wadnaa tirooyinka meesha ku yaalo markaan soo celcelinay average-kiisa central tendency-giisa dhexbartankiisa wuxuu noqday 14 hadday da tahayna waxaan dhihi karnaa dadkaas meesha ku nool celcelis ahaan waa 14 waay da-dooda okay kadib maxaan ku khasbannahay inaan ogaado 14kaas xaggee loo jira marka maxaa u naqaanaa dispersion maxaan soo raadinay standard deviation-kiisa laakiin maxaan ka bilaawnay variance-ga waa nonsense waxma tara laakiin waa dariiqa loo maro maxay standardkaaga kadib maxaan keenay standardkeena maxuu noo keenay 3.84 maxaa u naqaanay dispersion-ka maxay tahay marka 14 sano ayaa dadkaasi jiraan da-dooda average ahaan miinka waay 14 sano marka dispersion-kooda kala duwanaanshaha ama miinkaada waxaa loo jiraa 3.8 almost kan markaa soo round gareeyo wuxuu noqon doonaa 4 oo maxaa le marka haddii central tendency-ga plus or minus lagu daro sigmadii kan waa 14 waxaa ku dara ka jara maxay 4 markaan isu geyno wuxuu noqon doonaa 18 markaan kala goyno maxay wuxuu noqon doonaa 10 ama 14 maxaa ka wadna marka dadkaas da-dooda aan soo xisaabinay markaan fiirinay dadkaas maxay waxaa ugu da-yar 10 sano waxaa ugu da-weyn 18 ama 14 waay 14 waxay noqotay maxay average-ka celceliska intee soo celinay 18 years old intee soo celinay 10 years old maxay noqotay dadkaas markaa fiirin maxay badankooda kulli maan boqolkiiba 68% or more dadkaas waxay jiraan from 10 ilaa 18 in yaraa laga yaaba maxay inay 18 ka weyn yihiin ama 10 ka yar yihiin that's the interpretation-ka ama sida maxay loo tarjumo xogta markii la soo calculate gareeyo markii la soo analyze gareeyo waxaan filayaa in la fahmay concept-ga ama sida loo isticmaalo central tendency-ga iyo dispersion-ka waxaan ka baxnay markay tahay groupka waxaan ka baxnay markay tahay population-ka waxaan u soo fahmnay xogtaada inay tahay guud ahaan ama sample waxaa ku fahmta xogta markii lagu siinayo waxaa lagu sheegi doonaa xogtan ay haysato population way because markaan xisaabsanayo calculation-kayga waa inaan fahamsanahay dhowr idea ee ka mid tahay maxay xogtan aan haysto population miya mase waa sample si aan u kala saaro maxay formulka isticmaali doono marna waa mu y mar x bar y mar s y mar sigma y sigma square y s y markaa ku sheegi doono inaan fahmo adda bigan xogtan haysto sample miya mase population way kadib aan ka baaraan tahay maxay xogta hadday sample tahay ama tii guud taageen ma group mase aan group way hadday group tahay
كان واي كدي محن حشتي the formula waxaa inoo haray kan marka waa population waaye waxaa inoo haray markay tahay sambalka markay tahay sambalka waa same calculation waaye like waa different letters waxaa kala duwanaan doonahay numberka waxa u taagan waxaa miinkaaga markuu sambalka x bar waaye markuu sambalka x bar markuu yahay laakiin guud ahaan waa mu standard deviation markuu sambalka s waaye markuu yahay population waxay sigma waaye marka intaas kaliya kala faham waxa ugu horeeyo الاستعمال دونه population ميا if yes mu sample ميا if yes x bar من كيسة population ميا if yes standard deviation sigma sample ميا yes st أنا بحي standard بحي أسود مركي اللي فهمه at the begin حكتان اسمه population sample ميا group ميا group ما كدي form كاستعمال هاي صاروا أنت هكذا بحني و variance standard deviation with central tendency حكت markay tahay group markay sii tahay population maxaa inoo haray xogtan maanta aan shaqeyn waxa u qaado inay tahay population laakiin isla ayada u qaado inay tahay sample because shaqadu waa isku mid waaye just bis waxa kala duwan kaliya maxay waxa isticmaalaan ka soo qaad ilaa markiis xogtan maanta waa sample waaye waxa lagu diray dispersion kiisa iyo standard kiisa iyo variance kiisa ayada group maxaan dhahnay xogtan ko group waaye waana hadda maxaan ku shaqeynay population maxayna ahayd group isla ayada armayna ku shaqeeyo sample still group way laakiin u qaado inay tahay sample haddii sample tahay maxaa isbedel markaan fiirin waxa isbedelaya kaliya kalamaan waxa isbedelaya kaliya only xurufta markuu sample yahay kan wuxuu noqon doonaa x bar ko kan wuxuu noqon doonaa x bar inta waxay noqon doontaa n small meeshuu ka weynaa sample n small markuu yahay population n capital waa laakiin markuu yahay sambalka n small waa maxaa u baahan tahay fx f wato haysta x haysta isku dhufso waata marka isku geyso kan waxaa u qaadan inay tahay sambal because shaqada same waay maxaa isbedelay meeshii n capital ahayd maxaan ka dhignay n small x bar waxaan soo saarnay central tendency maxaa ku dhiman dispersionka maxaa u baahan tahay inaan kala gooyo maxay x kasta oo laga jaray maxay x barka mu-gayga then markuu yahay sambalka kan wuxuu noqon s yes haddana muxuu ahaa sigma square oo ahaa because population waay maanta maxaa assume garanay inay tahay sambal tahay maxaan u qaadanay s square similarly n capitalka oo baxaysaa waxay noqonaysaa n small ama isugeynta frequency waa same saashan frequency isugeyno isugeynta frequency-gaagii wuxuu dhekaan doonahay n caadi ama tiradii guud 80geed then meeshii ku tahay n capitalka maxaan ku qornay n small iyo fx midkaad isticmaal one of them meeshii ku tahay muda waa bixaysaa maxaa imaanaya x because isma qaadan karto xaaraam waay waana dembi waay inaad su keento waxay x stan oo sambala inaad ku lamaaniso mu oo ahaa populationka das waa qalad weyn waay maxaa isana stan square isna maxay noqotay sambal waaba inaan qaataa marka x bar then maxaa isbedelay s booski sigma ahayd ka maxaa galay x bar booski ahayd mu ka maxaa haysanay n capital maxaan dhigay n mama fx maxay noqotay sambal waay kadibna s ku soco markaas still s waay intaa shaqada waa same waay maxaa yeeshay still maxay standard deviation for variance maxaa noqday 14.8 kadib waxaa u baahatay standardkaagi maxaa ka saaray root ka maxaa noqday s yes kadibna standard deviation wuxuu noqday 3.84 almost 4 markaasoo round gareeyo ka maxaa noqday variance-gaagi maxaan ka saaray rootkayga kow muxuu ahaa sigma square ahaa maxaa u bedelnay s square because xogta sample waay maxaan soo saarnay s maxay noqday standardkani wuxuu noqday 3.84 kadib maxaan qaaday maxay almost round gareey waa 4 waay kadibna conceptiga ahayd plus oo minuska isticmaalno meeshii mu ahayd maxaa ku bedelay x bar sigma maxaa bedelay s markaa كم قايستا 14 مع قدرة كجرايا 4 محو نقضي مرنا 18 واي مرنا 10 واي ترين كاس ماكسيمم لي 18 واي مينيمم لحي 10 واي كل ما يبقول كي وحي 68 بلس حكتا سد 8 انا وحاول حيسا from 10 to 18 حد العقد تايم حي هو between $10 الى $18 اما $14 anyway
waxaan ka baxnay dispersionka asigoo gruuba markuu yahay sambalka markuu yahay qaybta guud ahaan waxaan rajeynaya in la fahmay xogtaan ka hadlayno iyo muhiimadday leedahay waa mahadsantihiin yes